Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabtayda qaaliga ah anigu waxaan ahay King Solforo waxaad iga daawanaysaan King Solforo bro waayahay waxaan idin hayaa qiso aad iyo aad u cajiib ah haddana xanuun badan run ahaantii qisadan waxay ka dhacday wadanka Mareykanka waxayna u dhacaysaa sida tan qisadan waxay ahayd qiso run ahaantii gilgishay dadkii ay dhagahooda ku dhacday ee maqlay waxay ahayd qiso qof walba oo maqla run ahaantii uu aad iyo aad ula yaabayo waxa weeye qisadan qiso ay aad u yar tahay in koonkan markaa iyada ahay lagu arko laakiin way dhacdaa laakiin ma ahan qiso soo laalaabato ama mar walba dhacdo qisadan waxay dhex martay amaba sameeyey nin wadanka Mareykanka ah u dhashay Black American ah isla markaana wada qabay gabar iyo hooyadeed amazing waa joker ninkan oo kale Soomaalidu waxay tiraahdaa joker caadi ma hal dhagax ayaa markaa iyada wuxuu ku wada daliyaa laba shimbir caadi ma inta waa kaftan run ahaantii taa wax macquul gala ma aha wax maskaxda bani aadamka ay si fudud u qaadan kartaaye run ahaantii ma ahan King Solforo teamna run ahaantii aad bay ula yaabayaano waa sababta u soo qaatay qisadan in aan idinkaga sheekay waayahay muddo aan saa u fogeen ayay wadanka Mareykanka ka dhacday adalayka waa wax dhacay waxaan kaga sheekeynayo waxaa la yiraahdaa 2 oo 13 meelaas wax dhacay waaye wax taas u fog maaha waayahay qisadan run ahaantii ninkan waxa uu muddo 20 sano ah ay wada joogeen gabar ama naag ay 20 sano u qabay gabar ay gabadha naagta u qabay ay dhashay uusan isagu dhalin gabadha markuu guursanayay gabar yar bay wadatay gabar aad u yar bay wadatay adalayka 2 sano jir ah oo kale ay wadatay markuu guursanayay isaga gabadha eedahayd waxa uu soo noqday aabeed oo kale ayuu ahaa uu soo barbaarinteeda ayuu ka qayb qaatay iskuulaadkeeda akhlaaqdeeda whatever ayuu ka qayb qaatay markaad aragta ninka wuxuu u muuqdaa nin yar haddana nin yar ma ahan run ahaantii waa nin 40 sano jir ah gabadho naagta ay isqabeen waxay jirtaa 36 sano dabcan sida qormadu ay sheegayso aan iraahday 39 sano hal sano bas ayuu ka weyn yahay laakiin 20 sano ay wada joogaan dabcan waxa dhacayo gabadhan yarta ahay oo 2 sano iyadoo jirta oo nolosheeda ku soo biiray oo waalid u noqday dabcan ayaa markay weynaatay soo qangaartay waxa uu noqday saaxiibkeed isla markaasna waxa uu noqday saaxiibkeeda nolosha hoose iyada iyo hooyadeedba markaa iyada ahay oo isku wada raamsaday iskuna wada darsaday dabcan sidaad muuqaalka ka arki kartaan gabadhan markaa iyada ah maxaa la yiraahdaa garsooraha ah ee maxkamadda joogta waxay ka shaqeysaa maxkamad u dooda caruurta yaryar ee aabahood inkireen waalidiintooda intay inkireen u dooda ilmaha yarka ahi ay maxkamadan shaqeeyada tahay oo paternity count ayaa la yiraahdaa paternity court ayaa la yiraahdaa haddaba marka maxkamadani inay yimaadaan maxaa sababay waa maxay sababta ka dambeysa inay maxkamadan yimaadaan oo ay barnaamijkii fashilaan su'aalo adag baa la weydiinayaa inay wada saaxdeen intay sanay wada saaxan jireen qaabkii meesha ka soo bilaabeen wax qof bini aadam uusan ka sheekeyn karin bay ka sheekeynayaan maxaa sabab marka inay fashilaan barnaamijkan waxaa sababay maamadan hadda aad u jeedaan ee ilaahay bilaariyay inta la eg iyadii cunugteedaba nin 20 sano guri ku haystay wali inta wax ka daran hal guri bay ku wada nool yihiin su'aalaha la weydiinay intaan u gudagalin waa sheeko dheer gudaha baan u gudagali doonaa bit by bit su'aal walbo la weydiiyay siday ugu jawaabeen laakiin waxaa jirto marka hore maxaa sabab inay barnaamijka fashilaan oo ay maxkamad soo gaarsiiyaan dabcan waxaa fashilaya maamada ayaa fashilaysa waxay u fashilaysaa ugu horeyn dabeecado badan bay ku arkaysaa gurigii gabadhii oo isbedeshay oo waxyaabo badan oo funny bay ku arkaysaa way shakinaysaa then way dabagalaysaa then waxay arkaysaa gabadhii oo 3 sano
aan ilaahdee 3 bilood uur ah. Gabadha 3 bilood uur markay ku aragto dabeecado badanna aysan hore uga aqoonin gurigana ay ku aragtay meesha ay kaga shakisay ninkan iidan ay xiriir bilayn ayaa dabcan waxaa dhacdanay soo wargeliso maxaa la yiraahdaa booliski ninka la xiray kadib ay su'aalo ninka weydiisay gabadha weydiisay iyagoo waxba aanan fashin labadooda afkooda haysta oo diidan inay barnaamijkan sheegaan ayay haddana gabadha uurkeeda markuu soo baxay waxaa la yiri marka haddii gabadha ayba uur yeelatay maba u baahnidba in aad ninkana weydiiso maxir baad leedihiin gabadhan gabadhuna aad weydiiso gabadhaaduna aad weydiiso oo tiraahdo ninkan maxir baad leedihiin uma baahnid waxaa jirta maxaa la yiraahdaa maxkamad la yiraahdo paternity court maxkamadda ida tagaysa ninka DNA baa laga qaadaya su'aalo la weydiinaya DNA-gana waxa weeyaan waa test ama tijaabo qofka laga qaadayo marka aydan lagu ogaanayo in uu isagu waalidka dhalay uu yahay cunugan ama ilmahan iyo in kale ma baahna ay wax weydiis baa la yiri iyagan waa inkireen maxkamad taas baa horta sababtay in la yimaado kadib markay yimaadeen su'aali baa la weydiinaya waxaa su'aal la weydiiyey ninka la yiraahdo ninka labada gabadh ama gabadhii hooyadooda qabay waxaa la yiri adiga bal qisan inoogu sheekay sidee ku dhacday adoo run sheegay baa la yiri wax been ah maxkamadan lama ogolo in laga sheego markaasuu leeyahay aniga been ma sheegayo waxaa jirto hadda sad arkaysaan waxaa lasoo xaraynaya maamadii banaanka ku maqneed waxaa lasoo xaraynaya waxay tahay iyadan in wax laga weydiiyo maxaa la yiraahdaa arrintan intaan wiilka idin aan arrintiisa aanan u gudagalin maamada la weydiiyey bal wax inoo sheeg baa leeyahay arrintan maxaad ka ogtahay markaas maamadii waxay leedahay runtii waxay leedahay arrintan waa arrin aad u funny ah gabadhaydu waxay sameyn jirtay waxyaabo aad u funny ah waxaan xasuustaa bay leedahay waxyaaba xasuusta maxkamadda leeyahay waxaan xasuustaa bay leedahay runtii in anagoo qolka fadhiga wada fadhina ayaa markaan u baahdo masquul inaan aado oo kaleeto oon bathroomka oo kale aan aado aniga iyo ninkayga waa is ag fadhina inta badan bay leedahay markaan kaco meeshii aniga aan ka kacay bay soo fariisanaysaa oo waxay markaa iyada ah garabka u saaraysaa bay leedahay aniga ninkaygii waxyaabahaasna runtii aad baan ula yaabi jiray bay tir dhaqan ma ahan markaa iyada ahay ama xiriir ma aha bay leedahay inay saas isugu soo dhawaadaan waalid iyo ilmihiisa oo maba u dhaqmi jirin bay leedahay ninkayga iyo gabadhayda inay kala yihiin waalid iyo ilmihiisa oo kale uma wada dhaqmi jirin bay run ahaantii leedahay taasna waxay leedahay waxyaabaa igu sababay inaan aad ugu shakiyo oo run ahaantii halkan aan soo gaarsiiyo barnaamijka ayay si raacinaysaa markaas baa su'aalo la weydiiyey ninkan odayga ahay waxaa la leeyahay bal adiga barnaamijkan noo sheeg baa la leeyahay niyahow wax inooga sheeg maxaa ka jira maxaad ka ogtahay maxaad ka xasuusataa say waxaan ku dhaceen say macquul ku tahay kuma dhehina baa la yidhi bal wax inooga sheeg baa la leeyahay kaale say wax yihiin markaas wuxuu leeyahay dabcan waxaan xasuustaa buu leeyahay aniga wuxuu ka bilaawday buu leeyahay aniga iyo gabadhan xiriirkeena aniga iyo iyada iyo hooyadeed oo qolka fadhina bay message isoo qortay weli farta lasoo gagaabay ah messagekii marka isoo qortay then aniga waxba kama soo qaadan uma jawaabin waxay isoo qorteen waxay ahayeen buu leeyahay goormaad markaa iyada ahay guriga kusoo laabanaysa oo kale then weligeedna waxaas ima soo qorin messagin ima soo qorin xiriir gooni maan lahayn arrintii aad baan ula yaaba buu leeyahay run ahaantii then anoo arrinta war saas aanan kasoo qaadin buu leeyahay baan maalin kale guriga haddana isku caarana guriga soo galay markaasaa from that day wuxuu dhahay dhar awal waxay guriga markeedii hore awal ay wadan jirtay dhar caadi ah waxay bilowday dhar qaqaawo inay xirito jirkeedii muuqdo ad wax attractive inay sameynayso kadibna ragaba ahay buu yirani gabadhana aaba uma ahi ana ma aanan dhalin dee wuxuu leeyahay macnaha dee waxaan ka sheekeyn kara maahan marka dambana wuxuu leeyahay ilkaan ku qaatay wax la yaabay noqotay bal sugaa le halkaas igu gaaday ma sii wada kartid gabadha la leeyahay bal adigu maxaa ka jira la leeyahay ninka inuu ilkaa ku qaatay iyo wuxuu ka sheekeynay markaas waxay leedahay horta aniga waxyaabaan u qoray waa siduu sheegay uma qorin bay leedahay aniga wax oo asaga u baahan uma qorin just gorma guriga kusoo laabanaysa ayaan u qoray maalinta ku xigtana asaga isagoo uu yiri abaytri intuu isagoo wuxuu yiri kaalay waxaan aadaynaa hotel waan aadaynaa waqti soo qaadana waa ku soo wareejinaa gaaridan ku qaaday oo ku soo celinaa ayuu dhahay dan ana waa iska raacay kadib meeshii aan tagnayna waxaa ka dhacay tiri in aan uu ka dhaco
marka iyada ay xiriirkeenii kii si ugu horeeyey oo halkaas ku qabsoomay isla markaasna isla waqtiga dhexdiisa waxay tiri waan soo wada saaxanay aniga asaga waa isku tagnay Google Live ayaan ku sameynay marka iyada aad baan ula yaab war suba la yiri kaale imisa Google Live baa sameysay kaas makiinii idinkugu horeeyba haabay tiri waayahay meeqa sameysan waxa la xisaab karamay xisaab ma leh subhanallah wax shoonaya ma dadkii mees joogay aad u qaylinay aad baa loola yaabay arintii waxay noqotay arin run ahaantii dadkii oo dhan galgashay markaas baa la leeyahay waayahay bal ii kaadiya idinku kaale waxa sameynaysan soo ma ogdiin waliba ninkay aad ula hadashay gabadhan maxkamadda joogta garsooraha waxay tiri kaale waxaad sameynayso soo ma ogid wax aad iyo aad u falxun inay yihiin wax sharci darro ah inay yihiin inaad gabar iyo hooyadeed wada qabtid guri ku heshatid waliba hal qol waliba gabadhu adiga soo korisay ka qayb qaadatay korriimadeeda afkiisuna ka sheeganaya korriimadeeda inuu ka qayb qaatay akhlaaqiyan iskuulaadkeeda waxbarashadeeda haddana maanta uu gabadh iyo hooyadeed wada haysto so wax qalad inay tan ogid haa buu leeyahay maxaa u sameysay markaa waa dhacday buu leeyahay waa wax in adag markaas arintii aad marka loo yaabo waxay leedahay way su'aal baan ku weydiinay adiga hay madam weydii buu leeyahay markaas waxay leedahay ka waran haddii cunugan keebaad ku qanacsan tahay natiijada markaan idin tusno inaad aabbo u noqoto miyaad wiilkan yarka saddexda bilood jira inaad u noqoto aabe ayaad ku qanacsan tahay mise inaad u noqoto awoowe because aabbo wuxuu u noqonayaa gabadhan buu asaga haysaday gabadha dhowr mar la sameeyay Google Live aabbo u noqon karaa mise waxaad ku qanacsan tahay inaad u noqoto marka iyada ay grandfather inaad u noqoto ama awoowe maadaama gabadha cunugan dhashay hooyadeed uu asaga marka iyada qabay markaasuu leeyahay wax labadaba wax hadii aan u noqdo wax micno marka iyada ay sameynayso malahan ayuu leeyahay gabadha la weydiinay wada kaale ilmaha ka dhalay baa leeyahay waxay leedahay laba qof oo midkood laba qof maxay kaliin mid waa ninkan bay leedahay hooyadii qaba intaasoo sanana anay asaga oo anay qabay inuu dhalay waa inuu asaga cunugan leeyahay waa macquul bay leedahay laba waxa kale macquul bay leedahay in marka iyada ahay yar kale asagana aan ka warhaay baa jirto ma aan la saaxday inuu asaga dhalay waa laga yaabaa markaas bay leedahay kala cunugan ma ku eg yahay wiilka waxay leedahay wiilkan adiga ma ku eg yahay markaad fiiriso aniga ima eg ayuu leeyahay meel uu iga eg yahay malahan waayahay ilmaha aad u dhashay gabadhan hooyadeed aad ka dhashay gabadhan hooyadeed ilmaha ka dhashay muu eg yahay maya buu leeyahay marnaba lagama yaabo in cunugan anigan aabbo u noqdo ayuu hadalkiisii sii raacinaya waayahay arintiiba aad isugu marka iyada ahay cakirmaysa gabadhan lagu magacaabo garsoorad leek waxay mar su'aal weydiinaysaa gabadha waxay mar su'aal weydiinaysaa hooyadeed waxay mar su'aal weydiinaysaa ninka saadad aragtaanba waxa diyaar noqotay oo dabka saaran natiijadii DNA-ga ee testiga ama tijaabadii laga qaaday ninkan odayga ah gabadhan iyo hooyadeed wada qabay si lagu ogaado in cunugan isagu dhalay iyo in kale waa diyaar waana la dhameeyay jawaabteedu waxaa la rabaa inay akhriso halkan ka akhriso gabadhan marka iyada ahay garsoorada ah ninku maqlo gabadhu maqasho hooyadu maqasho isla markaana dhageystayaashu halka dambe fadhiya aad arkaysan marna qoslaaya qaarkood ooyayaan qaar marna sacbinaya inay maqlaan sidoo kale aniga iyo adiga hadda muuqaalkan daawanaya waa hadda adiga ii jeeda ee muuqaalkan daawanaya adiguna aad dhagahaagu ku maqasho haddaba adigu maxaad is leedahay talow cunugan ma waxaa dhalay ninkan oo gabadhan yarta ahi hooyadeed ninkii qabay iyo uu iyadana qabay ma waxay dhali doontaa ilmahan yarka ah ay dhashay wiilkan yarka ah ay dhashay waxa aabbe u noqon doono ninka dhalay ilmaha iyada la dhashay inaad fahanteen baan umaleynaya waayahay waxaa loo keenayaa marka iyada ahay natiijadii waxayna u akhrin doontaa sida tan adiguna hoos noogu soo qor sida ay kula tahay
waxay leedahay natiijada la ii keenay ama resultiga la ii keenay ama jawaabta ka soo baxday dhiiggii laga qaaday ninkan odayga ah ee lagu kala cadaynaya in uu isaga dhalay iyo in kale jawaabteedu waa sidan ayay leedahay. haddaba jawaabtu ma ku wada farxi doonaan saddexdoodaba mise mid baa ku nexi doono oo jawaabtu qaar bay ka nexin doontaa. waxaad isha ku haysaan ninka celebrationka u gelin doona. waxaad sidoo kale arkaysaan muuqaalka codka ka xiran maahane waxaa kood aad u arki doontaan maamadoo neef tuuraysa oo neef weyn ka soo go-ayso oo aad dareemi kartaan inay ku farxday. ninka wuxuu gelin doonaa waa kaa marka natiijada lagu dhawaaqay oo isagu ma ahan aabbaha marka la yiri madaxu markii hoos u raaricinayaa. maamadii aad bay u neef tuuraysaa. cunugtii waxaa ka muuqata murug yar waa laakiin aad bay iyadu naftarkeeda u faraxsan tahay. wuxuu leeyahay markaa iyada aad baad u mahadsan tahay garsoore ayuu ninka aad u leeyahay. maamada way hadlaysa waxay leedahay waan ku faraxsanahay arrinta dhacday. aad bay runaantii u neef tuuraysaa oo waxaa ka muuqata farxad aan inaba la qiyaasi karin. jawaabtii waxay noqotay adigu matid aabbaha dhalay cunugan. jawaabtii waxay ka farxisay maamada, waxay ka farxisay cunuga ninkan, waxay ka farxisay markaa iyada ahay gabadh yarta. sababtan waxay tahay maamada waxay diidaneed ilmaha ay iyada dhashay ninka aabbaha u ah in haddana uu aabbo u noqdo ilmo ay dhashay iyada gabadheeda. gabadha waxay ka cabsanaysay ilmo ay iyadu dhashay inuu aabbo u noqdo ninka qaba ninka dhalay ilmo iyadoo la dhashay. sidoo kale isagana waxa uu ka cabsi qabay taa mid la mid ah. laakiin gabadha ayaa cabsi yar ku dambaysa oo taasna waxaa sababaysa in ilmaheedu weli aan loo haynin aabbihii saxda ahaa ee dhalay. haddaba gabagabada muuqaalkan waxuu kusoo dhammaanayaa in waxaa lagu go-aamin doonaa in ninkan iyo gabadhan hataa aysan is salaami karin, isku guurna aysan ku wada noolaan karin. ninka taa waxaa sii dheer ninka iyo naagtu waa isku qanacsan yihiin. maamada weyn iyo ninku waa isku qanacsan yihiin. laakiin gabadha ayaa waxaa go-aan lagu bixiyay in guri markaa iyada laga buray. salaam calaykum.